madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu idinka sidnaa duco iyo hambalyo iyo amnigeenu inuu wada ilaashano. waxaan u mahadnaqayaa ciidamada bilayska ee hadiya habeen taagan ee ammaanka inoo sugaya ee suuqa haddii u shacirka loo tuuro aanay dhulka ku dhacayn amnigeeda sugaya. dhammaanteen waynu iskarabsanaynaa, waynu isku tiirsanaynaa, amnigeenna gacanta midig baynu ku haysanaynaa. haddii Allah awoodda leh ogolaado, ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in Ilaahay inoo adkeeyo oo amnigeenna Alla inoo adkeeyo. aad baan ugu faraxsanaynaa caawana soo booqateen. waa farxad iyo diilaana geliseen. suuqa waaheen haddaan idinka waranno nabadgelyadu boqolkiiba boqol weeyaan. dadku marka ay dadka madaxdooda u timaado dadku si gaar ah u farxaan. waxa kale oo taliya aanu kugu sii bogaadina Ilaahay fadligiisa inta yaraad joogtay Ilaahay fadligiisa sidaad bilayska iyo amniga iyo tiknoolajiyadda ciidanka aad kor ugu qaadina aad baan taliya kugu habalina taana waan kor haynaa. had iyo habeen lama seexdo suuqa sidaa uu yahay uu furayay ayaa waagu ugu bariyay inamada shaqaaluhu ba isbedelaya. dhaxanta ma damqado habeen gumayo dabaysha dhacda dubka ma karto qalbigu ma dareemo daalka jirko dartaa dhaayaho u daaya hurdee dhaxanta ma damqado habeen gumayo dabaysha dhacda dubka ma karto qalbigu ma dareemo daalka jirko dartaa dhaayaho u daaya hurdee waxaan ugu diiday daryeelka naftana dadkaagu ammaadna taaca helo dusheeda miya darajo huwisaan daryeelka naftana dadkaagu ammaadna taaca helo dusheeda miya darajo huwisaan dameer xaambaa bilayska dalkee inaan dal jirahay anigoo ku hadlaya afka guddida suuqa waaheen waxaan idinku soo dhawaynaynaa suuqii waaheen oo maanta aragtaan sida uu yahay sanad iyo dhowr bilood ka horna shingadu ku wareegsanayd. waxaynu aad ugu faraxsannahay in Ilaahay nabadgelyayna siiyey oo dadkeenniyo innaguba aynu qurux badannay. waddanka magaalada waad arkaysaa meel aan ummadi taagnayn oo aan qurux badnayn ma jirto. maayir iyo taliye ku soo dhowaada suuqii waaheen. aad baan ugu faraxsanaynaa caawana soo booqateen. waa farxad iyo diilaana geliseen. suuqa waaheen haddaan idinka waranno nabadgelyadu boqolkiiba boqol weeyaan. ilaahay mahadii dadku had iyo habeen lama seexdo suuqa sidaa uu yahay uu furayay ayaa waagu ugu bariyay inamada shaqaaluhu ba isbedelaya. dadku saa u soconayaan u tagayaan guryahooda u imanayaan ayaa looga adeeganaya. maasha Allah suuqa waaheen aad baan ugu faraxsanahay caawa inaad timaadeen. maasha Allah ilaahay mahadii aad iyo aad baa u mahadsantihiin. farxad gaar ah bay noo tahay waayo dadku marka ay dadka madaxdooda u timaado dadku si gaar ah u farxaan. waxaana meesha ka soo baxa oo yimaada isu soo dhawaanshaha dawladda iyo dadka. waxaanu jecelahay mar walba in madaxdu nala joogto oo noo timaadaan oo idaan naga qoob qaadin waayo taasi waxay keenaysaa in dadkii iyo dawladdu ay isu soo dhawaadaan wada socdaan. dadkuna way ku faraxsan yihiin mar walba madaxdooda inay la joogaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin booqashada noogu timaadeen danihiin oo dhan inta ka timaadeen halka noogu timaadeen waaheen oo ciida oo quruxda maanta leh. ilaahay baa mahadle ilaahay nagu simay inta xadhayna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo wanaajiyo insha Allah tacaala. waxaan isleeyahay wasiirada iyo madaxweynuhuna way iman doonaan haddii Alla yidhaa. annagu waanu jecelahay inay noo intoota madaxdu qalbi furan iyo gacmo furan baan idinku soo dhaweynaa. farxadna way noo tahay inaadna soo booqataan oo noogu timaadaan goobteedii ganacsiga. taliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saa loo sheegay booqashadooda oo waliba maanta aad ka sii nasiib badan tahayoo dalkii oo ictiraaf aad nagu soo noqotay sanadkii dambe. aad iyo aad baan taliya ugu faraxsanahay Ilaahay fadligiisa. waxaa kaloo taliya aanu kugu sii bogaadina Ilaahay fadligiisa inta yaraad joogtay Ilaahay fadligiisa sidaad bilayska iyo amniga iyo tiknoolajiyadda ciidanka aad kor ugu qaadina aad baan taliya kugu habalina taana waan kor haynaa. waxa weeye si amnigii Soomaaliland maanta isu wada bedelay say ku sheegeen guddida iga horeysay. waxa weeye suuqa amnigiisu wuu sugan yahay Ilaahay fadligiisa. abaarta yara jirtay oo waxa weeyaan Ilaahay aan ka baryano Ilaahay
raxmaad inoo keeno khayr qaba ilaahay ka wada baryayna mooyaane waxa weeyaan amnigu wuu shaqaynaya ilaahay fadligiisa dadku waxbay iibsanayaan waxa weeyaan Soomaaliland maanta maalin ay ka wanaagsan may soo marin waxa weeyaan taliya waxaad ku nasiib badan taliyaasha ku nasiib badan tahay adigoo maanta dalkaaga ictiraaf haysto oo taliya ka tahay ayaad maanta la soo boqtay ilaahay fadligiisa waxa kaloo isagana aad u hambeynaya maayirada ayaa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo ah maayirkii soo maray 34 sanadood Soomaaliland maayirka ugu qaalisanaa oon habeen walba salaadan tukada anugu shakhsi baan oo aan ka baryo ilaahay ninkaas madaxweyne u taagan i gaarsiiyay dilini ayaan habeen walba ku ducaystaa wallahi marka maayirka waxaan leeyahay ilaahay fadligiisa ilaahay dambigaaga ha dhaafo khayrka baa lagu hayaa saribadii waa heenoo iyaduna ilaahay fadligiisa bila gudahoodii aba sanada xagga yar loo dhabaad doonta hadaa leeyahay oo maayirka awoodda saaray taana waan ku hambalyeynaa taliya alxamdulillaah rabbil caalamiin annaguna waan ku qanacsanay dawladda iyo say wax socdaan iyo ictiraafka iyo amniga iyo waxa weeyaan annaguna waan la shaqay farkii fool ma dhaqdo taliyaha bilayska iyo ciidanka waan la shaqeynaa madana maayir ka yeeli mayno muddadaada joogto waa joogaysa way waxa heshay taliya wanaagsan waad heshay way waxba nasiib dheer ilaahay fadligiisa marka maayir waxaan ka codsanaa adigana waxa weeyaan dadkaagu shacabku diyaar bay ku yihiin saan ku sheegnay wallahi qof walba waa ka dhab wada wal oo la maraba qofkii soo maraba uu ku ducaynaya halkan waa suuqa barxadda suuqa oo ahayn dhexdeeda ka dawlad hoos ahaan 5 sano u dambeeyay waxaanu ku jirnay shaqo adag oo aanu gali jirnay 15 Ramadaan annagoo gacan siin jirnay ciidanka bilayska iyo laamaha kala duwan ee amniga 9 degmo iyo 10 waaxood waxaanu soo galnaa shaqaale dhan habeenkii waxa gala 3 waaxood iyo 3 degmo annagoo u sameynaa astaan gaar ah laga garto iyagoo dadkooda caawinaya gaadiidkooda ka dhaqaajinaya wixii basar xumo wadada ku haya ka dhaqaajinaya dadka waayeelka iyo carruurtooda ka tallaabinaya gacan buuxdana siinayna ciidanka bilayska insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaanu sidaa ku sii wadno bil kasta oo Ramadaan dawladda hoose waxa ka go'an 15 dambe Ramadaan inay tahay sunno wanaagsan oo u jideeyo dadka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo golihiisa deegaanka alla khayr siiye waxay u jideeyeen in 20 markay 15 Ramadaan gaadho shaqaalaha dawladda hoose kaltarsi u galaan dadka kaltarsigaas wuxuu noqonayaa in wadooyinka la baneeyo gaadiidka wadada laga dhaqaajiyo iyadoo cidna waxba la yeelahaynin dadkana si wanaagsan loogu soo dhaweeyo suuqa si wanaagsan ugu adeegtaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin caawi maayir iyo taliyayaal suuqii ka muuqata Hargeysa waana arkasaan suuqa waaheen sida la inoogu ducaynayay nimcada taala ilaahay waxaan ka baryaa inuu sidaa inoogu dhameystiro inta aan hadalkayga oo dhan waxaan doonayaa inaan xasuusano halkani waxay ahayd halkii markii wixii aynu maal haynay dhaqaale haynay dambasuu noqday dambas aynu rajada nidhi maalin baa ilaahay ina tusi doonaa innagoo dib u dhisannay oo suuqeenna ku shaqaysanayna oo uu sidii hore ka qurux badan yahay ilaahay baan ugu xamdi naqaynaa ilaahay inoo suuro geliyey in suuqina inoo dhismay maantana camiran yahay innagana waxay nagu waajiba inaynu alxamdulilah nidhaahno marka intaan laga yimaado waxaanu ku faraxsannay inaanu idin soo booqanno waxaanu isidnaa duco iyo in ilaahay maalka iyo kala iibsiga iyo mashcuuradaba alla idiin barakeeyo oo iidani ay noqoto iid dhaqaale fiican dadkuna wax iibsadaan kuwii wax soo dejiyeyna ay ka faa'iidaan insha Allah biidni illaahi tacaala waxaa kaloo aynu doonaynaa ammaanka iyo amniga inaynu adkaysanno baan la daymoonno tuugga iska eegno qofka amniga iyo ammaankeen iyo nabadgelyadeenna waxyeelaya aynu meel uga soo wada jeesanno waxaan u mahadnaqayaa ciidamada bilayska ee hadhiya habeen taagan ee ammaanka inoo sugaya ee suuqa haddii u shacirka loo tuuro aanay dhulka ku dhacayn amnigeeda sugaya ciidamadeennana allah inoo barakeeyo shaqaalaha dawladda hoose oonay shaqadooda ahayn inay sida bilayska u shaqeeyaan ee 15 dambe Ramadaan shaqeeya ee u soo jeeda si aan wadooyinku inoogu xidhmin iyagana waa u ducaynaynaa waana u mahadnaqaynaa ummaddu hadday iskaashato gamcaha isqabsato dalna way dhisi kartaa waxay ku faantana way samaysan kartaa gamcahaynu isu qabsanaynaa dalkeenna inaan dhisanno ammaankeenna adkaysanno waxaynu adduunka u sheeganno inuu ku faanno inaynu qabsanno ayaynu doonaynaa insha Allah ilaahay idinkii dadkana waxa faran in qof waliba kaalintiisa uu ka soo baxo nabadgelyada ilaashado qofka wax inaga xumaynayna farta bilayska loogu fiiqo baabuurta cidda wadata qolada baabuurta wadata suuqan laga xarimay baabuurta way ku maadsan yihiin amarka inay u hoggaansameen aad iyo aad baan u faraxsannahay caawa waxaanu dhex joognaa dadkayagii
oo faraxsan oo iibsanaya dharkii iidda annana waa la faraxsannahay amnigeenna gacanta midig baynu ku wada haysanaynaa biliisku waa shaqaalaha dadweynaha idinkaannu idiin shaqaynaynaa dadkaannu u shaqaynaynaa dhammaanteen waynu isgarabsanaynaa waynu isku tiirsanaynaa amnigeenna gacanta midig baynu ku haysanaynaa haddii allah awoodda le oggolaado ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay inoo adkeeyo oo amnigeenna alla inoo adkeeyo oo isku tiirsanaanteenna iyo niyad wanaaggeenna allaha boqorkii inagu arsuqo oo cadowgeenna o dhan alla inaga qabto ilaahay baynu ka baryaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bulshada reer somalilan sida ay ciidanka booliiska ula shaqaynayaan ee u garab siinayaan ee ay wixii ay arkaanba ugu soo sheegayaan ee aynu isugu tiirsannahay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska ee hadhow habeen u taagan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda inay ilaaliyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dawladda hoose oo aannu xidhiidh wanaagsan maayirka iyo tiimkiisa leennahay oonu gacmaha isu haysanno oonu dalkayaga iyo dadkayaga wada shaqaynayna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynahana waxaan leeyahay dawladda hoose idinkaa idiin shaqaynaysaa biliiskuna idinku idiin shaqaynayaa dhammaanteen waxaynu guul ku gaadhaynaa isgarabsi iyo inaynu gacmaha isqabsanno aynu wada shaqayno aad iyo aad baa u mahadsan tihiin halkan nin baa ka yidhi wasiirraduna inay noo yimaadaan baanu rajaynaynaa wasiirradana kaalee baanu odhanaynaa way imanayaan haddii alla yidhaahdo insha allah bidnillaahi kariim way soo marayaan habeennada ka mida 10 dambe wasiirraduna way imanayaan haddii alla yidhahdo ballantaana waa qaadnay insha allah bidnillaahi kariim waxaan ku soo gebagabaynayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaannu idinka sidnaa duco iyo hambalyo iyo amnigeennu aynu wada ilaashanno